That's my homeboy. Watch your back if you're gonna walk alone, boy. Cause everybody in the homeboys trying to get rich. You could get hit even if you're known, boy. Islaanka dhexdiisa boodboodooy maruun baan banaanka ka heli. Islaanka dhexdiisa boodboodooy maruun baan banaanka ka heli. Alamde السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدا أجيدان بوا صاحبك سيكي مانتا إيو برنامج كان دي وضو واحد دعي واحد اللي يرادا شلفانين أما إسكهوريمات لابا فنان لابا داس فنان marwaan yare إيو الفنان dayax dalnuurshe horta inta aan falanqeyntooda gelin labadoodaba isku soo wada dub fanka codkooda ku joogan macnaha dhanka codka labadaba diin looguma laha haddaba maxaa iska hor keenay reality-ga maxay tahay waa tahay waxaanu qiimeyn ku sameynaynaa heesta muranka dhalisay ee labada fanaan ay ku luuqeeyeen aan ugu hormarno marwaan yare ma ii ahaaday haween ku agjooji mayaado dawi xaashaqoonay marnaba ku jikaari mayo hooyado ma ii ahaaday haween ku agjooji mayaado dawi xaashaqoonay marnaba ku jikaari mayo أقوض ما يمنحني يدين كلا دهات سما يقهنو أتعدي لك جل أدوك قهنو جل ذاك الدبوه وما يبيبي أتعدلك أقوض ما يمنحني يدين كلا دهات سما يقهنو درهم كهو دينبا marwaan yare waa daawateen markana dayax aan daawano dareenku jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl la wadaagi maayo jiliinka weyne qofaanad yahayn farxiya ogeyga u jeexi maayo macaanu janjeeri maayo jacayl la wadaagi maayo sheekadan ka dhaxaysa marwaan yare iyo dayax dalnuurshe oo ah heestan iyada ay isku haystaan heestan muusikada un bay ku kala duwan tahay mooyee inta badan heesta way is leedahay reality-ga markan dabcan heestan labadan wiil ee fanaaniinta ah waxa uu dhiibay un hal abwaan waxaana ku horeeyay dayax dalnuurshe oo heesta loo dhiibay bilooyinka hor laakiin muu soo qaadin waxa ka dambeeyay oo soo horsaaray marwaan yare sida ujeedeenba dayaxna uu ka daba keenay heesta isagana dib uu ka soo saaray in yar baa u dhaxaysay marka maxay tahay sababta keentay waxay tahay waxa la leeyahay heestan abwaankii u dhiibay dayax dalnuurshe bilooyinka hor inuu yiri heesta waxa codsatay markeedii horeba gabar la yiraahdo Jamila oo tiri abwaanow heestan igu cimaamad macnaha shakhsiyaadka qaar waxay sameeyaan abwaaniinta intay u tagaan bay waxay yiraahdaan abwaanow magacayga heestan ku samee macnaha magacayga hees ku samee fanaan u dhib waliba mararka qaar waxay sii raacsadaan baa lagu leeyahay waxaan jeclahay inaad fanaan hebel u dhibto sida BK uu sameeyaad aragteen heesiis inta badan dumar ayuu ku amaanaa magacyo kala duwan ee dumar heesa ayuu soo saaray sidaad ogtihiinba marka waa sidaas oo kale in qof shakhsi ah intuu abwaan u tago ku yiraahdo magacayga waa sidan falaq hebel la yiraahdaa marka waxaan rabaa inuu hees aad ugu cimaamadaysa abwaan inaa ii sameeysid
oo maaragtay fanaanimo lagu dhigtay marka waxaaba la leeyahayba abwaanki uu leeyahay heestan dayax dalnuurshe aan mar hore u dhiibay gabadhii lagu cimaamadi lahaa oo magaceeda ahayd Jamiila ayaa waxay tiri aniga heestan dayax dalnuurshe ha u dhiibina waxaan rabaa laba fanaan midkood inaa u dhiibtaan oo ah Qadarkeeyow ama Marwaan labadooda mid in heesta ay ugu cimaamadaan ay soo qaadaan okay haddaba dayax dalnuurshana waxaa la leeyahay in bilooyin ka hor uu abwaanka u dhiibay uuna qorsheynaya dayax maadaama uu ka wato falaqdiisa inuusan falaq kalaba uusan u heesine falaqdiisa oo magaceeda ugu cimaamado amba waa sameelahay haddaan fanaan ahay oo xaas leeyahay mid kalaba ma raadiyeen falaqdigan ugu cimaamadi lahay dayaxna wuxuu qorsheynayay in uu xaaskiisa magaceeda heestan ugu soo heeso waabuu qorsheeyayba heestana wuu xafidsanaa way u qornay saasaa la leeyahay sidaa awgeed markii gabadhii heesta loo sameynayay ee diidayna waxaa go-aan lagu gaaray in marwaan yare loo soo dhiibo heestana sidaabuu kusoo saaray dayaxna go-aankiisa hore uu haystay ayuunbuu qaaday muusigaa la kala duway waa la soo qaaday marka tan waxaa la yidhaahdaa shilfaneed way dhacdaa tan oo kale marka sidaan oo kale markay dhacdo waxaa la rabaa dhexdhexaad inaad ka ahaatid waayo magacaaga meesha ku lumi karaa hadda anigoo kale markaan iska soo qaado dayaxna saaxiibbaan nahay oo respectiga naga dhexeeyo marwaanna saaxiibbaan nahay oo respectiga naga dhexeeya marka sidaan oo kale markay dhacdo oo aniguna youtuber aan nahay waa in labadoodaba aan u eexane reality aan ka hadlaa marka waxaan leeyahay bulshada sidaan oo kale markay dhacdo fanaaniinta idinkaas ku balaminina way dhacaysaa sababta idin leeyahay idinkaas ku balaminina social media soo gelinaysaan kana tuug qaaday heesta maaragtay xaday kana tuug asaa xaday maaragtay social media inaad keentaan heestan haaf ka soo jartaan tanna haaf ka soo jartaan ciwaanka uga dhigtaan dayax oo heesta xaday haddana intaad soo qaadaan social media soo gelisaan sidoo kale ciwaanka uga dhigtaan marwaana xaday wax qurux badan maaha oo labadii fanaan xitaa waxaa dhici kara in labadooda dhexdooda aad ka abuurtaan cuqdad iyo nacayb labadooda inay isu qaadaan marka waxaan waa iska shilfaneed way dhacan in maaragtay laba fanaan hal hees soo wada qaadaan waxuna markooda horeba ma ahayn maaragtay wax oo maaragtay isheeg oo wax weyn oo waxay iska ahaayeenba fan iyo heesna dembiba ma laga day saan oo kale haddee dhacdo oo shilkaan oo kale uu dhaco ha isku dayina inaad iska hor keentaan labada fanaan waa laba fanaan oo Soomaaliyeed waa laba wiil oo dhalinyaro oo hadda soo baxaya labadabana codkooda waseen waa laba nin oo ilaahay talent iyo cod siiyay heesoodana hees kasta soo qaadaan uma baahna in maaragtay la gado ama sida dadka qaar ay sameeyaan waa laba nin muhiimadda fanka codkooda ku jooga haddaba labada nin ee heesaaga ah marwaan yare iyo dayax dalnuurshe ha isku balaminina saanoo kale way dhacdaa shilfaneedaa la dhahaa wax weynaa ka soo qaadina marka waa ka soconaynaa okay markana waxaan sharaad siinaynaa gabar youtuberada oo Soomaaliya magaceeda waxa la yiraahdaa intisaar jey sida ujeedaanba xaliimooyinka wax badan ka faa'iideysiin aawe xaliimooyinka tiim falaq halway aa meesha idin dir waa ogtiin awateedka u furtiin howshiina qabsada Chombo, chombo, chombo kana kwenda na fashe. Chombo, chombo, chombo kana ngozi ya loshe. Chombo, chombo, chombo pechi chuma ni sable. Chombo, chombo, chombo takapeleka upe. Chombo, chombo, chombo kana kwenda na fashe. Chombo, chombo, chombo kana ngozi ya loshe. Chombo, chombo, chombo pechi chuma misamba. Chombo, chombo, chombo kana kwenda na fashe. Chombo, chombo, chombo kana ngozi ya loshe. Chombo, chombo, chombo pechi chuma ni sable. Chombo, chombo, chombo takapeleka upe. Chombo, chombo, chombo kana kwenda na fashe. Chombo, chombo, chombo kana ngozi ya loshe. Chombo, chombo, chombo pechi chuma
Uh-huh.